kulan wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeena sheekooyinka jacaylka sheekada maanta sheeko aad u xiiso badan oo muddo dheer sheekada magaceeda waxa la xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka sheekada waxa qoray Cabdiraxmaan Maxamed Guul waa mar kaleeto iyo sheekadeenii xiisaha badnayd ee xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka oo qaybteedii 15aad ay noo maraysay Salma iyo Subeer oo isku raacay casho si ay arrimahooda akiran ay uga soo baaraan degaan waxaanay noo joogtay Salma oo Subeer ku tiri ma kula tahay inaad ii sheegto wax kasta oo isbedelay si aynu u gaadhno dhayitaanka ama bogsiinta boogta bal haddaba aynu u gudagalno qaybta 16aad ee sheekadan iyo jawaabihii Subeer iyo xaaladda ay habeenka ku sugnaayeen Subeer wuu yaaban yahay waxaan oo dhanna lama socdo oo isaga dhibaatada family-ga ay haysata mooyaane marna isma laha gacalisadaada ayay wax kaaga imanayaan wuu u babacdhigay waan u cadaystay reerkooda inaanu ka hadheenin kana hadhi doonin Salma waxaase nasiib darradu tahay marka labada dhinacba aan midina ku garaabayn Salmi waxay is leedahay wuu ka tagayaa oo cid kale iyo saaxiibada kale ayuu yeeshay reerkooduna waxay ugu dudayaan muxuu ka daba socdaa gabadhan waa dhibaato adduun dabcan waa waxyaabo iska dhaca inta badan waana arrimaha u baahan in si aada ay dhalinyaradu uga feejignaato wuxuu ugu jawaabay Subeer Salmaay anigu haddaan cid kale yeelayo habeen iyo maalin subax iyo galab waxa layla dul jooga hablo midiba midda kale ka qurux badan tahay waxaa soo dhanna waxaan u dhaafaa ama aanan uba danaynaynin waa adi daraada ma garan karo mana fahmin mana qaadan karo kumana qancayo sida yar ee khafiifka ah ee aad iskaga qaadatay inaan anigu meel kale mari karo markii aad dibadda ku maqnayd wakhtigii aad ninka lahayd maalmahaad inacbayd ayaamihii iigu darnaa ma cid baa igu kaa khasbasay ma qof baa ii kaasasabayey ma jacaylkiibaa iga baaba'ay miyaan waanlaa ma waxaad is leedahay wuu falnaa mise haddaa la beddelay ayaad is odhan kartaa waxaan aad uga xumahay oo aanan qaadan karin inaan dareemo oon wejigaaga ka arko murugo iyo dhibaato waxaan naftayda dhibtaas oo dhan u geliyey waxaan bulshada gooni uga go'ay waxaan waalidkay gooracad uga dhaqaaqay waxay walaalahay igu colaadinayaan ee ay asxaabtaydu igu caayayaan Salmaay ogow waa caashaqaaga waxna uma arko inta adiga aan xaggaaga kalsooni ka haysto waan se jabayaa oo lumayaa meel aan marayana ma ogaanayo marka aad ii soo raacdo qolada hadday arrintu sidaa tahay haddaad iga shakiday iyo haddaad iga tashatayba anigu markii horeba waxaan ahaa Subeerna wax iska beddelayaa ma jirto muddadaa uu hadalka leeyahay gaadhigu wuxuu yaallaa baarkinka hoteelka ee ay rabaan inay ka casheeyaan ee wuu la sugi waayey inuu hadalka la daadego markay dhegaysatay ayaa waxa aad u damqay oo nugleeyey hadalladiisii calaacalkaha way ooyday labada indhoodba ilmaa ka timid way adkaysan weyday inay ka qarsato in badan bay isku dayday inay is-ilowsiiso oohinta wayse awoodi kari weyday markuu Subeer arkay iyada oo hoos u foorarta oo gacmaheeda indhaha ku haysa ayuu ku yidhi qofkan dunida ugu jeclaayay haddaan maalin uun ka fakari lahaa ka tag weligay kuguma soo noqdeen haddaan in uun is idhaahdo gabadh kale la sheekayso kaamaan qariyeen walaalii aamin oo ii aamo waxaan oo dhan waxay u dhacayaan waxa la dhowrayaa waa samirkeenna Salmaay waxaa ku iman doona qaar si cad oon qarsoodi lahayn kuugu sheega hadallo been ah oo laynagu kala fogeynayo waxaase taladu ku xidhan tahay hadba sida aad u qaadato iyo waxa aad ka rumaysato hadalkooda ayaamo badan iyo wakhti badan ayaan ogahay oy dad ku luminayaan sidii laynoo kala dili lahaa ma garan karo faa'iidada ugu jirta waad og tahay markaan ahay Subeer dhib kasta oo igu dhacda waxaad ahayd mid ila qaybsata iyo ogaata iga warqabta waa maxay sababta xidhiidh la'aanta intaa leeg ee labadeena ina dhex timid Salma erayada Subeer meel ololaysay ayaad moodaa inay qaboojinayaan
sida biyaha oo kale waxaad moodaa inuu ku socdo Ceylon oo ay macaansanayso ama dhandhansanayso sharaabkiisa ugu macaan ma nuuxsanayso waqtiganna ilmadu way ka go'day hadda ogow weli kama degin gaarigii waxaanay ku jiraan in ku dhow saacad mar dambe ayaa waxa u yimid mid ka mid ah inamadii meesha ka shaqaynayay intuu soo istaagay dhinaca Subeer ayuu ku yidhi walaal waan idin diyaariyay goobtaad fadhiisan lahaydeen goorahanba waanu idin suganay ma cid baa idinka maqan oo idin soo socota intay isku naxeen ayuu midba midka kale eegay dabadeedna waxa loo soo dhaadhacay kuraasidii iyo halkii ay ku cashaynayeen markay fadhiisteen ayay cabbaar aamusnaayeen waxayna la yaabanaayeen sida aanay u dareemin muddada dheer ee ay gaariga ku jireen goor dambe ayaa midkoodba dhinac u qoslay dabadeed waxay ka dalbanayaan cuntadii wiilkii ka shaqaynayay hoteelka waxaanay u sheegeen cunto isku mid ah inuu u keeno sidii buuna dalabkii uu kaga qaaday muddadii uu raashinku ka maqnaa ayaa haddana hadalkii halkii laga bilaabay Subeer oo aanay weli ka daadegsanayn shakiga xoogan ee ay ka qaaday gacaladiisu ayaa wuxuu aad ugu dadaalayaa inuu ka dhaadhiciyo inaanay waxba jirin oo iyada uu u maqan yahay isla markaana aanay dhageysan warxuma tashiilka iyo dadka kale dila kuwa isjecel Subeer hadallada si adag oo aan dhayal lahayn ayuu u leeyahay kadib markii uu ogaaday xaaladda ay ku sugan tahay Salmi waayo markii hore oo dhan wuxuu haystay inay isaga ku baadhiso oo ay rabto in ay ogaato heerka uu ka taagan yahay jacaylku Salma ayaa qaadatay hadalkii waxaanay tidhi walaalo wax badan baan kaa qarinayay aabiyo hooyo way ii yeedheen maalin dhaweyd waxaanay talo ku soo gooyeen ama hadal ku gunaanadeen laba arrin midkood in aad yeesho taladayada oo ah in aad ka hadho wiilka iyo in aad noo keento oo aanu afkiisa ka qaadno inuu ku jecel yahay isla markaana uu reerkooda qasab kaga dhigo inay ku soo doonaan sidaana aanu kugu siino walaal markaan u adkaysan waaye hadalka waalidka iyo Subeerow arrin aan kaa qarinayay waxa dhacday in dhammaan dhalinyarada magaaladu aan lahayn shaqo aan aniga ahayn bal waxaan ku siinayaa passwordka Facebookgayga bal waxaad eegtaa fariimaha 3 toddobaad ee u dambeeyay ku soo dhacay inkastoo aan in badan nasaxay haddana weli waad arki doontaa waxa ku qoran waxa kale oo jirta hablihiinu waa hablahayaga maadaama oo aanan inan la dhalanin waxaan u haystaa inay noqonayaan walaalahay oo ay buuxin doonaan halkii kuwa hooyaday dhalay lahayd laakiin ayaan darrada jirtaa waxay tahay iyaga ayaa ugu horeeya una horseed ah wax allaala waxa dhacaya oo dhan Subeer markay intaa tidhi wuu isbedelay oo xaaladii farxadeed ee uu markii hore ku jiray way ka baxday waqtigan meesha waxaanu arkay arrin aad u qaraadh oo falxun oo aan la eegan karin waxaanu ku yidhi waan dareemayaa dhibka mana ihi qof waxba aan qaadanin waxaanse ku xasuusinayaa in anigaba intaa adiga imika lagu leeyahay in ka badan la igu leeyahay laakiin waxa adiga kuu dheer oo meel laga dhaafaa aanay jirin isu soo raacan waalidkay iyo walaaladay waayo dadka kale oo dhan waad iska celin kartaa waxba ma arki kartid xataa kol aad ka aargoosataba waxaase nasiib darro ah adiga oo aan waxba ku odhan karin tixgelinta aad aniga igu tixgelinayso awgeed haddayse garan waayeen laga bilaabo maanta kama aamusayo runta ayaan u sheegayaa waxaanan leeyahay haddaad inacaysaan haddaad jeclaanaysaan haddaad idayrinaysaan iyo haddaad idanaynasaanba anigu Salma gabadh aan ahayn ma guursanayo Salmaay xaqiiqdii markaan runta kuu sheego arrintan aniga ayaa halkan soo gaarsiiyey amri ilaahayna ha iska jiro laakiin waxa ahayd inaan qaato go'aan kama dambays ah oo ama aan u go'o waalidkay ama aan adiga ku soo raaco way dhici weyday hadda iyo wixii ka dambeeya ayaan kaga dhabaynayaa oo aan u sheegay waalidkay inaanan noolaan karin Salma la'aanteed marka haddii ay iga maarmayaan ha isoo fasaxaan arrinta kale aad ii sheegayso ee ah inaan waalidkaa u sheego habeen dambe hadda ayaan banu imanayaa xaafadda hooyo iyo aabbo una sheegayaa uguna bushaareynaya inaanan anigu mowqifkayga marnaba bedeli dooninna markii uu intaa yidhi ayay Salmi kor u soo kacday waxaanay ka dhunkatay Subeer madaxa iyadoo leh walaal waan isku kaa hubi waanan isku kaa haleynayay wixii aan sugayayna ama niyadeeda ku jirayna way ii rumoobeen waayo goor iyo habeen
maalin iyo galab waqti kasta waxaan ku qancin jiray naftayda in aanan u dhandhigin hadallada dhacdhaca ah ee dadku igu leeyihiin maadaama aad adigu weli jacaylkaagu halkiisii yahay oo wax isbeddelihi aanu ku dhicin markay hadalladaa leedahay hodheelka waxaa ka socota hees jacayl ah oo midhaheedu yihiin naf jacayl hayaa ma hargashee hurdo way nacdaa ma higsatee naxlibaa helo naanaabiye nasrigeeda doon haba nuurtee nidar baan galoo adaan najmaay noloshaydiyey adaan najmaay jacayl hayaa ma hargasho hurdo way nacdaa ma higsatee jacayl hayaa ma hargasho hurdo way nacdaa ma higsatee subeer wuxuu la socdaa heesta macaan iyo hadallada aad moodo in laisku soo naqeeyey ama isku soo beegmay ee goobta ka wada baxaya halka salma ay goortaa wado hadallada isugu jira duurxulka waanada iyo wax isu sheega waxaa dul yimid wiilkii mudalabkahaa oo u sida wixii ay dalbadeen cabbaar ayaa meeshii la fadhiyey aamusni hadal gaagaaban qosol dhowl caddayn ah iyo farxad ayaa lagu dhammeeyey cashadii dabadeed subeer ayaa qaatay hadalkii wuxuuna yidhi sidaan horeba kuugu sheegay waa inaan hawshayda ka soo baxaa anigana igu hadle salmi iyadoo aad u faraxsan ayay tidhi waayahay walaal waan ku aaminsanahay walow wakhtigu iisu sii gurayo oo ay ku sii siqayso 10kii habeennimo waxaa la soo raacay gaadhigii sidaasaanu ku keenay gurigoodii isaguna uu ku hoyday laguma kala joogin intaase markii uu gaaray guriga ayuu qabsaday taleefanka isagoo oo la hadlaya salma oo wakhtigaa iyaduna u diyaar garoobaysaa inay seexato waxay cabbaar ka sheekaysteen taleefanka waxaa soo dhacay moobilkii subeer dabadeedna wuxuu ka odhanayaa salma iga raali ahaw aan la hadlo qofkani maadaama ay iyagu marka hore laynka ka wada hadlayeen wuu qaaday waanu eegay show waa hodan waanu ka qabtay halow maxaa la sheegay nabad iyo nabad intaa markii ay iswadaarsadeen ayaa hodan tidhi waxaan u baahanahay subeerow inaan ku arko weliba sida ugu dhaqsaha badan ogowo gacanta kale waxa uu ku hayaa taleefankii laynka guriga oo ay ku jirto salmi waana maqlaysaa hadalka uu ku jawaabayo subeer iyadu markiiba garatay in qofku tahay dumar balse wax daah ka saaran yahay ta ay noqonayso subeer intuu aad u dhibsaday hadalka hodan dhinacna ka ixtiraamay ayaa wuxuu ku yidhi walaal wakhti ma hayo maalin oo dhan mashquul baan ahay habeenkiina waxba ma haleelo weegagan soo socdana waxaa laga yaabaa inuu aabba ii diro berbera si aan uga soo raro alaab halkaa taalla sidaa daraaddeed way igu adag tahay ballanta aan kuu qaadi karayaa adiga oo aan xumaan iiga qaadanayn markuu intaa yidhi hodan waxay ku tidhi si kastoy ahaataba haddii aad tagtana waa nasiibkaa haddii kalena waynu isla joognaa anigaana kula soo hadli doonaa wakhtiga aan firaaqa helo goortaa salma aad bay u cadhaysan tahay waxay ku dhowdahay inay dhigtaba taleefanka waayo waxay ka xanaaqday qancinta badan iyo wakhtiga aadka ah ee uu siiyey gabadha waxayna ku tidhi subeer la sheekayso inanta anigu waan seexanayaaye dabadeed wuxuu ku yidhi walaal waan dhammeeyey wixii ay weydiinaysay waxaad ii tiraa waan seexanayaana ma jirta ee iga raali ahaw deetana wuxuu baktiyey taleefankiisii moobilka salma oo marka horeba shakisan dumarkuna ragga way ka sii xag jiraan xagga hinaasaha ayaa haddana waxaa hor imanaya humaag labaad oo odhanaya show inta uu kaa maqan yahayba gabadhan ayay wada joogaan xaaladda salme ee mararkan dambe waxay noqonaysaa ama ay u eg tahay mid aan degganayn subeer ayaa ku celiyay hadalka waxaanu ku yidhi walaal isdeji qoftani waa gabadhii aan kuu sheegi jiray mana garanayo waxay iga daba socoto wayse soo dhammaanaysaaye ee adigu dulqaadkeeda yeelo intaa markuu yidhi ayaa hadalkii waxaa la wareegtay salma waxaanay si toosa ugu odhanaysaa subeerow ma aha inaynu wax kala qarsanno mana habboona innaga oo ah kuwa ishorran inaynu isku sheegno wax khiyaali ah iyo hadalla hadhow inaga hor iman doona suuragalna ma aha waxaan waaye wax aan ku idhaahdo oo waan ixtiraamaya waxaana ii muuqata inuu hunguri kaaga jiro haddiiba ay sidaa tahayna dee malaha wixii la sheegayey ayaa dhab ah oo aniga ayaa fudud labadayada
subeer marka hore kamay qasnayn habeen jawi wanaagsan leyr qabow dhul bilaasan qad ah oo uu ugu talagalay inuu ku raaxaysto hadalka gacaladiisa ayuu u ahaa habeenku hase ahaatee in yar kadib ayaa wuxuu isu bedelay jawigu mid cakiran oo dhinac walba olol iyo kuleel ka baxayo wuu fadhiistay halkuu awal ka jiifay waxaanu ku yidhi aad ayaan uga xumahay waanan la yaabanahay waanan liqi kari la'ay sida dhibta yar ee ay kaaga soo baxday kelmadda ah iyada ugo maanan filin in aan weligay afkaaga ka maqli doono cid kala raac wax kasta way iska dhacaan haddaad garatay in aad aayaheennii mustaqbalkeenna iyo gurigii aan dhisanaynay muddo yar ku galaafto anigu waan kula qaatay dabadeedna isagoo aan wax dambe ku odhan ayuu ku dhigay taleefonkii salma markii uu dhigay taleefonka subeer cir iyo dhul way xamil weyday waanay ku soo celisay laakiin taleefonkii guriga wuu isdhinac dhigay moobilkiisiina waa kii xidhay markii ay hodan soo garaacday kadib isagu dibadda ayuu uga soo baxay qolka oo ninkii qaboobaa ee farxadda iyo qosolka ku galay wuxuu ka soo baxay isagoo aad u qamumiyoonaya karahsan joogitaanka uu jooga aqalka gudihiisa kamana adkaysan karo inuu ka aamusnaado salma muddo dheer balse arrintu waxay aad ugu sii mudan tahay oo wakhtigan gardarrada iska leh salma dibadda ayay u baxday daaradda ayayna fadhiisatay waxay soo qaadatay rikoodh si ay u dhegaysato heeso ay isku dhaafiso niyad jabka madax xanuunka jahawareerka iyo warwarka ku abuurmay waxay baadhay kartoon cajalada ah oo inta badan uu isagu u soo duubay kuwaasoo ah kuwa aad isku dhow oo dhammaantood ka hadlaya sidii ay u dhisan lahaayeen reerkooda una noqon lahaayeen raas ballaaran oo lagu nasto laguna nagaado dabadeedna waxaa u soo baxday hees ay midhahayga ka mid yihiin hurdaga ma'malladoo jacayl igama guuro galiilyada jidhkaygana qaban waaye gogoshee nimuu gubay jacaylo gantaalo uu ka taago kana jaray gasiinkii haddaad garasho leedahay go'day lama colaadshin hay gabin hay goynin amba kuma guhaajin la soco qaybta 17aad ee sheekadan xiisaha badan ee xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka